هذا يكون هذين أيام التقاط كان ولا لدينا الشرف بيئتها هنا كان عاوان ودوت كورة قلو أريما خصية تنهى السومالي لان سؤال شعية ذا هدي أنك جوابه مركا أقول رئيسا هرتا مركا عدون استقلال أمام مدح بناني سيدي دابا حول ير oo fudud oo meel taalo oo laga soo qaado ma aha waxay u baahan tahay sabir bay u baahan tahay in loo hawl galo u baahan tahay in istiraatiijiyad iyo dabaraday iyo shaqo xoog leh ee loo galay u baahan tahay aan ogaano markeedii horeba waqtiga uu isticmaalka ku jiray muddo aad u fara badan oo 80 sano iyo googo ah aynu istiqlaal sugeen wadamo kale badan in la mideen ha way jireen oo inuu isticmaalkii muddooyinku qaadanayay tan imika aynu hayno waxaan isleeyahay i'tiraafka waxa loo qaybin karaa noocyaal iyo jaranjarooyin haddii lagu qiyaaso wali ma hayna dawlad ina i'tiraaftay jawaabtu waa mada ma hayno adduunka ma jirto dawlad ina i'tiraaftay ilaa waqtiga ay joogno balse waxaa jira waxyaabo kale oo isku qiimeyn karo waxyaabaha waxa kamid ah xasilooni deganaansho ayaynu haysanaa aad iyo aad u qiimo weyn oo aad moodo in dunidu iyo caalamkuba ay inagu qiimeynayaan ay qirayaan inaynu dar wax qabsaday dad wax kororsaday dad soo halgamay dad inagoo ku nool khaasatan mandaqad aad iyo aad u arbushan oo dhibaatooyin fara badan ka taagan yihiin ilaa dee laynoo baaxshay oaisiskii ama waaxadii nabadgelyada laynoogu baxshay marka aynu eegno hareerina wax ka dhacaya taan wax markaa hawl yar ma aha wax weyn oo la qabtay weeye midda kale waxa maalin walba soo koraysa haddaynaan dawlad ahayn laba shaba wanahaynaa aqoonsi ka imanaya duwalkiiyo dunida inaynu dar wax qabsanay oo dhaqanay sida aynu sheegnay aynu nahay talabaad oo ah inaynu saaxiibo soo koraya oo nooc walba leh haddeen dawlad ahayn asxaab leh parliament ama muxuu ahay golayaal dunida ka mida dad baa inoo ololeeya saaxiibaanu leenahay jaamacadaha waxgarad kuwa wax qora way jiraan dad maalwalba qadiyadeena tartiib u soo fahmayo inoo ololeeya waxaasoo dhan way jiraan waa horumar laakiin waxaa biyo kama dhibcaana oo sida aad sheegtay xaqiiqa inayna ilaa waqtiga aynu joogno aynaan i'tiraaf buuxa aynaan gaadhin wax la taaban karo oo aanu leenahay i'tiraafkii taasaa muujinaysan aanu maanta jirin waxba ka jira dunidu dhabarkii inooga soo jeedina tartiib bay ku imanaysaa dunidu ilaa marka aynama i'tiraafinoo taasi dee waa maragma doonto inagu saa hawlaheena dee dalkeena waxu qabsannahay laakiin hawsha intaa ma ka badan karayna jawaabtu waa haa waan qabaa in hawsha intaa laga badan karayay waan qabaa intaa laga dheereynayay waxaan qabaa inaan badiba dadkeenna marka aynu ka hadlayno dhibaatooyinka aynu hortaagan xataa aan run dawladda iyo maamulku sidii loo baahnaa een uga wada sheegin waxaan qabaa in sidii loo baahnaa in looga wada hawlgalo aan looga wada hawlgelin oo ay hawsheena wax badan oo nuqsaanay ka dhiman tahay oo ta ugu weyn ay tahay wax la yidhaha transparency ama runka sheeg hawlaheena oo dadkeena lagu abuuray maalin walba ballan aan beeri ka jirin oo laga dhigayo inta loo fududeeyo laya berito baraasayna i'tiraafaysa maalinta alla maalintii safar loo baxaba ee maamulka dawladdu baxaba madaxweynuhu baxaba wuxuu soo ceshaa uu yiraahdaa wixii aan u baxnay iyo wax ka weynba waan soo helay oo waan soo gaadhay isagoo aan sarrifin waxaanu u baahannahay inaynu ogaano wixii naga khaldamay ilaa bilowgiiba iyo waxa xaqiiqda keenay dheer ay noogu qaadatay intaa waxa la wadaanta isha ka qalloocata faylkii la tagta aan markii aynu xorriyadda qaadanay qaabkaynu u dhaqannay baa riiqdaa dheer keenay waxa weeyaan gumaysi baa ayna haystay xorriyad baynu qaadanay haddii maalintaa aynu calan aynu leenayba taagno horta calan aynu leenay aynu taagno oo ka diiwaan gala qaramada midoobay yacni noqoshadeennu way fududaan lahayd waxaynu taagnay calankii soomaaliya talyaanigu
toban sannadoodoo daakhiliya buu siiyey 1950 kii un baynu taagnay caalam buluuya oo dhexda ku leh xidig cad oo 5 gees 5taa gees waxay tilmaamayeen 5 Soomaaliyeed sababaha riiqda u yeelay in layna aqoonsado ka weeyaan waxa weeyaan caalamka ayagii un baan dib loo noqonoo taagnay hadday timaado wax intaa uu ka soo fududaan lahaa waxa kale oo jira markaynu kaa taagnay aynu la soo noqonnay waxaynu taagnay caalamka aynu leenahay uu tawxiidku ku qoran yahay oo midabkiisu yahay casaan oo halgankii muujinaya cadaan oo nabadii muujinaya cagaar oo barwaaqo muujinaya isaguna bartanka wuxuu ku leeyahay xidig 5 gees loo madow iyaduna macna samaynaysaa waxa weeye 5 Soomaaliyeed ma jirto been baa xidigtaa 5 gees laakiin waxa jira 5 dadiyow oo af Soomaali ku hadla dawladaha Faransiiska ku hadla ama Ingiriis ku hadla shiraya Soomaad ma waxa jira 5 dadiyow oo af Soomaali ku hadla NFD baa kamida Soomaaliya kamida Somaliland baa kamida kilka shanaad Ethiopia kamida Djibouti baa kamida ya taas waxa weeyaan waa la soo noqoshadeeni caalan aynu leenahay oo hore aynu ku doodeynay ma jirin dabeedna ismuujin inaynu samayno wixii hore burburee aynu halkaa ka bilowno 18 May 1991 ayaynu bilowno waynu tafaqsanay waa rafaadnay waa nabadii baynu samayn doorashooyin baynu galay dawlad waxaynu nahay maanta in iyada horta is aqoonsan oo wixii dawladnimo lahaan jirtay maray oo dimuqraadi oo ay u taliyaan dawlad la soo doorto madaxweyne iyo baarlamaan iyo golayaal degan waxaan qabaa waxyaabaha aynu qabsanay dawlado badan oo jira oo la ictiraafsan yahay inaana qabsan barkeed ma lahayn inta marka aan ka gudbo waxa weeyaan waxa ay ku imanaysaa oo soo fududeyn kara muranka dhexdeena uu fogeynaya ictiraafkeen muranka dhexdeena uu fogeynaya inaga oo mucaarad iyo muxaafid ba isku duuban ila qarannimadu waa gaar oo aan muransanayn oo aan iska hor imanayn oo dhinac wax u wada wadna su'aasha waa su'aal aad u fiican in laga hadla weeye anu waxaan qabaa waxa weeye markii u horeysay ayaa inaga xumaatay siyaasaddu waxa weeye xitaa markaan ahayn SNM ta waynu haysanay military strategy waan lahayn oo waxay ahayd inaynu afweyne gabino laakiin political strategy ma lahayn siyaasad waxageenu ku soconaa maxaynu doonina oo cadmi jiray shacbiga waxa lahaa waan isxoreynaa dawladnimada la soo noqonina laakiin waa qarinna baan lahayn markii la isku yimi 19 burco qoradeeda leadershipka siyaasiyiinta way ku kala qaybsanaayeen arintaasi markii lagu dhawaaqayna lama iman istiraatiijiyadii aynu ku doon lahayn ma garanaysaa ictiraafkeena markii waan khilaaf dhexdeena soo galay marka khilaafkaas markii bay nagu bilaabmay waxa jirtay in isla markaa khilaafku jiray anu waxaan qabaa maalmaha 29 iyo 19 iyo 93 iyo in adduunka attention siinayeen laana markaa waxa qoyanaa raadkeeni iyo halgankeeni iyo dhibaatadana baday isla markaa waxa jirtay inaan Soomaaliland ictiraafkeeda aan loo wada dhameen oo dad badan oo siyaasiyiin ay jireen isxaasidiyeen wax ka laga soo horjeeday markii cigaaliyimina inta iyadana waxa dhacay iyadana lagu midaysneen oo waxaan xasuustaa maxamed xasan cigaalo naxariisteen oo yiri waxaan u tagay madaxweynaha Djibouti oo nina ictiraaf oo igu jawaabay hadda halka waxa ka kacanin reer Soomaaliland oo sigaarkiis ka yahay oo nalaana ictiraafina waxa weeye inuu adduunku waxaynu waa xaq ah laakiin marqura maynu u mudoobin waxa wal ogtay halgankeeni dibadda ayaa laga waday dadka dibadda xitaa may mudoobin oo may hodin oo campaign may sameeyeen waxaan arkaa waa qadiyad xalaal ah oo inagu aynu gabnay ayaan arkaa
marka dawlad maanta xitaa aragtid istiraatiijiyad midaysan ma lihin wasaarad habaysan oo shaqaalihii leh oo expertskii leh oo nidaam leh oo wufuudda marka diriso shirarku markay dhacayaan la socda kala qaybsan arrimihi carabta tii afrikaanka tii yurubka dee waxyi leh ma jirto marka habka inuu wadnaa hab aynu ku helino ictiraaf dhaqso ah maaha anigu waxay ila tahay laba arrimood oo iskaashaday ayaa dahay midda hore taweenan dib u dhigtay waxa weeye mandaqadan aan ka tirsannahay ee geeska Afrika iyo Soomaalidii aan markii hore midownay dalal badan oo caalamka iyo geeska ayaa waxay kala yihiin dana fara badan oo kala duwan marka danaha faraha badan ee gobolka istiraatiiji ahaan looga leeyahay waxay saameyn ku samaysay in aan lagu soo degdegin waayo مثلا hadda Afrika nusba caraba hadii nuska carabta ay aanay doonayn qadiyadii inay ka socoto Afrika gudaheeda xataa dib ay ku noqonaysaa waxa jira Yurub Talyaaniga iyo maartay dawlado badan ayaa yana saas olole ugu jira maartay in midnimadu ay hirgasho ka soko xataa geeska Afrika ya dawladaha nalno kolkii ay xisaabiyeen oo Ethiopia ugu horeyso waxa ay u dhaqmayaan inay dantoodii moodeen inay midnimadaasi ay ku jirto ama dawaayil waaweyn ha kula isla arkeen ama iyagu dantooda ka dhex arkeen sida awgeed qadiyadan gobolka aan ku noolnahay ee istiraatiijiyadiisa dawlado badan ee kala duwan ay kala yihiin waxay uga baahatay dadaal xad dhaaf ah u baahanta dadaalkeeni baa soo horay marka waayaan waxaan aaminsanahay hadii dadaalkeenu sida Faysal yiri maartay noqon lahaa mid midaysan oo leh qorshihiisa iyo aragtidiisa iyo aqoontiisa leh waxa laga yaabaa inuu albaabadaas qaar uu jabin lahaa laga yaabo waa xaqiiq ilaa maalintii aan gobonimada la soo noqonay kala qaybsanaan baa jirtay dagaalo sokeeyaa jiray aragtiyo kala duwan baa waxaas oo dhan waxay ku lahaayeen wuxuu maanta kaliya kala dhacay ma waxay ku lahaayeen saameyn dib u dhaca aqoonsi hadda مثل balan soo qabano sanadahan dambe dal kolkii la ictiraafayo xagee laga eega ta waxa laga eega weelku ictiraafka ku raadinay ma u dhan yahay xadkiisi ma u dhan yahay maamulkiisi ma u dhan yahay wixiisi ma u dhan ta waxa muuqata iska dhaaf inaan xadkii taabanay maalinba maalinta ka sii dambaysa inaan soo durkeena cadowgiina oo annaka nagu soo siqayo marka midnimadii aad wax ku raadinaysay buuq baa kaaga jira dood baa kaaga socota hareeraha cadowga shacbigaagii baana nus maaragtay adan gacanta ku hayn marka saameyn bay ku yeelanaysaa cidii danayn lahayd xad maxaan dhahaa midnimadaas kala dhantaalan waxa soo harsan oo kale metal ka soo qabo maamul xumida ka soo qabo maamul xumo weyn baa jirta iyo maaragtay dhibaato weyn baa jirta xagga maamulka waxa jirta tala wadaagii inuu maaragtay uu yar yahay maamul wadaagii transparency wixii laga hadlay maxay taasi iyadana ay keenaysaa iska dhaaf qof shisheeyahay kuwii dalka u dhashay gurigii Hargeysa laga dhisay maanta inta Dubai lala aadiya maxaa keenay rajo xumidaas horta mid waxaan jecelahay halkan aynu si aan isula wada fahano dunida ilaahay ma jirto dawlad la ictiraafsan yahay iyo midaan la ictiraafsanaynba meelaan mashaakil ama gudaheeda ka jirin ama madaqada dhibaatooyin aan ka jirin ama اعتراف لقوم السرية كلية كل يريدوا مصالح بالي رسيدة ولالك قبوس أو شيء كوا قبل ذاله كوا ينقول ردو باله كوا ينقول فوق باله وحصل مي كبئيج مايان النجا رجعنا بدنا وإحنا قبسنا كليه يجوا مصالح هذا نويك إيجيان مركا وحصل مي عادي إن ده هؤلاء جدوه نشيريان كعكوفه نسمر وجمهور إنه ودمدا ووريه كوا إما كمان ده دولتها هو وين يكوا كلامه ده كعكوف كي يدبتون كسوي كوتشران أو مواضيع راسي معناه معها هدي ينشري لهين اعتراف بينه هلي لهين أنا أقول بقى بين يتهاي مرك جودهان لا أجو وإنك الشيء إنه كل واحد يسوي رقرنا دبتك كستان لسمر كعكوف كستهدعو إسكهوريمات كستهدعو وحيد ذلك باخد عاد هذا هو الوضع اعتراف سيء
waxaas ictiraafka keligood iskamay keeni hortaagin ee caam ahaanta waa inagaa sheegayna laynoo qirayo ama inaga laftigood aynu isu qirano inaynu horumara samaynay deganaanshamad samaynay xasilooni samaynay democratization aynu samaynay aan dawladaha kuwa jaarka ah iyo kuwa kale inaga fogitoona heeree weli gaadhan aynu gaadhno dawladda inoo qirayso marka horta meesha kolli iyo kolliba dee waxaa jira masaalix kale oo gobolka iyo dunidu leedahay baa jira oo diiradda la saarayo innaguse laftigeenu dee waynu dhaliileyna waynu leenahay sidaa la wada sheegay kulligaan isu wada qirayno dhaliileyna waynu leenahay oo badiba la xidhiidha ta guduhuna way saamaynaysaa sida dibadda looga hawlgalaa laftigeeduna way saamaynaysaa geedi socodka dimuqraadiyadeenu iyo horumarkeenu iyo dareenka shacbigeenu laftigiisa uu qabo dadweynahaygin maalin walba qaar baa kaa jabaya qaar baa niyad jabaya markay arkaan in dalkii xorriyatul qowlkii lubayo marka ay arkaan in geedi socodkii dimuqraadiyaddu shaki iyo madmadow gelayo marka ay arkaan in corruptionkii ama cadaaladii ama wixii ummaddii dhammayda isku wada xidhnayd ee wax raadsanaysay ee wax wada qabanaysay ee hawshii qarannimada hinjinaysay kicinaysay markay kala furfuranto ama kala shakido maanta runta markaynu u dhacno dad daran baa suuqa markay joogaan isweydiiya wali xaggaynu ku soconnaa baryo dhaweyta waxaa dhici jirtay in aynu odhan jiray ama dawladdeena ha noqoto ama dadkeenu caam ahaanba ha noqdeen beriga koonfur ama soomaaliya ay iyadu wax noqoto ayaynu wada hadli doona waqtiyaal odhan jiray waa jireen waqtiyaal odhan jiray baa jiray ilaa ay dawlad noqdaan dawladda doorta ay meeshaa ka soo baxdo wax wada hadaloo la furaya ma jirtaa dawladdeena warkeedu ugu dambeeye rasmiga ah maanta su-aalaha daran baa ka taagan luqaddii lama yidhaahdo luqaddii maanta lama yidhahdo luqad aad iyo aada uga hooseysa oo dadkeennii mugdi iyo shaki gelisay oo marmarka qaarkood ummaddeennay ka shakisan tahay ilaa intee la-eg baynu maamulkeenna guud uu qarannimadii iyo ilaalintii aayihii ummadda u taagnayd iyo wixii ay doonaysay u taagnayd daacad ka tahay waa nufuud dibadeed ku jirin shakiyaal badan baa soo gala waxa weeyaan horta adduunkan inta la rogayo weligii qabiyo waa jiraysa waxaad qabsatay markaad ka timaado waxa kaa dhiman way jiraysaa malaa maraykan baa la yidhaha awood weyn buu leeyahay waxaynu wada ognahay haddaynu ku dhaadhacno yani qabyadiisu kun jeer bay tayna ka badan tahay waxaase meesha yaalla waxa weeye ma soconnaa horta hore ma u soconnaa ma u baahannahay inaynu inagoo isku duuban soconno iyo inaga oo isjiidayno oo dib isu jiidayna iyo manu dheeraynayna inaynu isweydiino labada waxa weeyaan waa guubaabo markaa tahdo waxaasay naga maqan halkaasaa xun halkaa laakiin marka ay noqoto danaheenna iyo ictiraaf raadinteen waxa weeyaan muxaafid iyo mucaaridba inaynu u midaysan waayo siyaasaddu gudaheednaynu ka loolamayna laakiin qarannimada in laga midaysan yahay weeye tan axmed ka sanqariyey oo ah yani soomaaliya iyo innaga waxaynu mowqif cad baynu ka leenahay golaha xukuumadda go-aan buu ka gaadhay golaha baarlamanku oo labada aqali go-aan bay ka gaadheen saddexda xisbi qaran go-aan bay ka gaadheen taariikhdaas waxay ahayd 2003 bishii 7 kow mabaadi guud waa jirtaa yani in la wada hadlo dawladaha dalalka adduunka inaynu la hadlo mid inoo dhow iyo mid inaga fog soomaaliya marka ay noqoto go-aanka inoo yaalla waxa weeye aynaynu isweydiina yaanu wada hadlaynaa goormaanu wada hadlaynaa maxaanu ka wada hadlaynaa saddexdaas su-aalo jawaabtooda waxay soo saarayaan ama keenayaan nidaam ah inaynu ama wada hadallo ama ka joogno yaanu wada hadlayna waa soomaaliya goorma waxa weeyaan marka dawlad hanata dadkeeda iyo dalkeeda ay ka dhalato oo kalsooni iyo awood leh markaasaa la wada hadlaya marka horta markaasaa la wada hadlaya baan ku maxaa laga wada hadlaya waxaa laga wada hadlayaan waxa weeye
nabadgelyo darisnimo wadaag iyo maxaynu ku darsan karnaa oo ama mushtara ama isdhexmara ama ilabadiyo inooma dhaxaysa waynu saysana kow marka waxa weeyaan horta taas nidaamkeedu waa inoo nooca hadday diidaan yana waqtigeeday leedahay yana arrin kale ay leedahay inaynu wada hadallo hadday diidaan laakiin waxa weeyaan maanta iyaynu la hadalno soomaaliya dawladda ma ka jirtaa ma qabo maya tuulo mid xukuntaa ma joogto cabdullaahi yusuf waa shaksi xamar buu joogaa dadkii u laayay lafahoodii buu iska dhex fadhiyaa meel alla meelu xukumo iyo dawladu odhan karaa aynu wada hadalno iyo dawladnimo u buuxdaa midna ma jiro maaha inaan awood xooga wax ku qabsado laakiin waxa weeyaan maadaama aan nabadgelyo haysto la ii aqoonsan yahay nabadgelyada in aan caalamka ogeysiiyo dhibaatada taalla iyo xuduudkaydii in qolo kale ku jirto oo weliba isir sheeganayso aan dawlad sheeganayn isir yani isku qolaana qolada meesha ay joogtay ee ku burburtayna aan isir kulminayn dabadeedna dee tallaabadii nagu habboon baynu qaadan karnaa tallaabadii nagu habboon waa qaadan karnaa laakiin waa in la og yahay in meeshaa qalluc yaallo khalad yaallo gardarrana taalo horta waxa weeye yaani topic inaga fogaanin waxa weeye waa 16 sano aynu joognay maxaa la noo ictiraaf weynay aynu la taayno aynu xoog saarno horta waa mid way jirteen adduunku uu interest ka leeyahay duwalku anu goonistaga Soomaaliland uma arko hadda laga tagay waa dawladda Talyaaniga iyo dawladda Masar moojaane wax interest midnimo Soomaaliyeed ugu jirto horta anu ma arko dawladahan jaarka nahay mesela Ethiopia iyo Kenya iyo Egypt la yiraahdo iyo waxa uu fiican de Soomaali kala tagta si ay mushkiladii geeska u degto ayaa u fiican anu waxa xoog saaray waxa weeye hawsheenan aynu qaadanay ee goonistaag ah afka waynu ka qaadanay niyadda kama aynu qaadan oo kala jeednaa daan dadku aanu kala jeedana guul ma gaaro haddaynu dhisi lahayn dawlad viable ah oo institutionka aynu samaysanay wasaaradaha baarlamaanka madaxtooyada aan sameyn structure aan samaysanay haddaynu ahaan lahaa structure adag oo sidii aynu ugu magac gadanay u function garaynayo oo adduunku soo jiidanayo investmentku inoo imanayso adduunku wax wala isdhaafsada oo ay imanayso tijaarada shisheeyaha oo dhaqaalinu kacayo oo inuu xuduud la inaga baqo oo la yiraahdo hadda Soomaali la isku celiyo dagaal baa dhacayo Hargeysa Muqdisho way dagaalamid koona wax la inaga la inaga baqo aanu sameeysan horta maanta aan ka noqonay waxaan caadiga saarneen inaan dadaal ictiraaf aanaynu sameeynin waxaan aan dabiga raacin inaan weelkeen ictiraaf ku helin aynu samaysan hadda safar baanu ka nimay safarkaan ku nimay waxay dadku noo cadeeyeen wadamadan tagnay safarkii madaxweynuhu bishii June tagay iyo kii imaka aan tagnay haddii aad sidaa u shaqayn lahayd meeday inaydu mar hore wax xaqin helayd laakiin waxa weeye qorshana maynu sameeynin halkaynu abaarnaa maynu sameeysan yasaynu abaarnaa sameeylaha markaa fiirsan dawladda Cabdiraxmaan Cigaal tan riyaal imka inta way ku leeyihiin dhibaatadaas way ku leeyihiin wad ogeed wasaaradaha arrimaha qaabilsan khaarijada wasaarad khaariji oo mar qura tayo leh oo isla jiro waxa laga yaqaan waa madaxweyne waa wasiirka isla DG galbada lama yaqaan marka waxa weeye Soomaaliya ma ka hadalno Soomaaliya waynu islaynay waynu ku adkaanay Soomaaliya waynu ku adkaanay dawladdu markay kala bixi waayaan saas dagaalada saas Suudaan oo kale ayaa la yiraahdaa si aan dadka damba u dhiman meel dhaxay isku yimaado heshiis la sameeyo laakiin waan kala faraxnay inagu xuduudeena waa xuduud aan weyn ku jirin oo ilaa hadda wali ma arag cidna u qabatona tiri xuduudiina taga cidna tiraa war xuduudiina waa international oo burangeli maayo ma kala ictiraafo waa dalkiina ictiraafku waa idoo buuxal ictiraafiya ama jaan ma arag laakiin waxa weeye Soomaaliya maanta wax la noo daba wada waxa weeye way naga dacayd bateen way naga orod bateen waxay gaarsiiyeen inaga gaarsiiyeen in xitaa dadkeena qasab lagu hayo oo inuu dadku ogoleen siyaasiyiintu ogashay marka beentaas ta fakatay way aan waxa ku soo urun lahaa
war marka aad dawlad aad doonaysa la ictiraafo habkeedii samaysid aad la timaadid sharafteedii iyo aqoonteedii iyo aragtida la timaadid haddaa la yidhaha waa layna diiday aan aragno laakiin maanta waxaan qabaa adduunka waxaan kaga cabanaa adduunka waxaan kaga cabanaa anu ma hayo meesha ka tagnaa waxa la yidhahaa waa hadduu kiiskiinu cayn ka yahay oo xalaashaa yahay oo dhibaatadaas ku dhacday waxaynu iibin kari weynay iska dhaafo xabaalaheeni mass graveskieni genocide-kii nagu sameeyey ayaynu xitaa adduunka gaarsiin kari weynay oo xabaalaheenu hagaajin kari weynay ummad xabaalaheedii hagaajin kari weynay oo tusi weyday marka dadku yimaadna wax la nagu sameeyey tusi weyday oo dadku la noqon waayeen ictiraaf lama keeni karto marka waxay la tahay mucaarad iyo muxaafidba waxay la tahay shacbiga haddaynu doonayno inaynu ictiraafino arrimahan way iska jireen gudaha waa dee dadku waxaa isku haya ina cid diidan Soomaaliya inay xor hesho maaha wax la yiraahdo hagaajiyo waa toosin mucaaradada sheegaysan laakiin waxa weeye wax loo baahan yahay inay dawladdu la timaado qorshe ku hawlgelisay in mucaaradaha kula hawlgelinay in muxaafadada kula hawlgeliyay ee wadamada ina caawiyaan u hawlgeliyay maxaynu dawladii weydiisanaa wax midaysan xitaa oo qaar waxay oranayaan referendum waxay oranayaan fact finding mission oo soo dira qaranaya qaar shirkaan ka soo qayb galay mar orana ka soo qayb galo mar yani inagii ma xitaa waxaan dadkii weydiisana marka hore aan jirin marka waxay la tahay aynu dadaalka badino wax xil ku saaran dawladda u saaran yahay hala dhiso qorshe wanaagsan hala sameeyo qorshe degdeg ah iyo ku dheer keena degdeg muxuu yahay hadda u baahanay waxaan u baahanay marka in horta wadamada IGAD iyo wadamada Afrikaanka ay horta xoog ka saarno oo qadiyadeena rintii waxay tahay aan tusno أنا واحد لتي أرنتين مركزي هذين قلت الدولة هجانك حتى هاي ساتا أي لتي ماذا برنامج أي بدون سلة هذا برنامج كاسان كاني والبرلمان كانتو وأصحاب تصيصو وكتاب برنامج كاسان سوسي مليون الدنيا أنا كهول قلنا اعتراف كيني محا عن إجاسية ولا قاسيني لكن برنامج مين اعتراف كا داهي وحوي يا اعترافكم مقام بس وعشوا مانس تعد اعترافك ugu maqan anigu waxaan qabaa muraayada gudaha ayaa siyaasadda dibadana u ah reflection ana u ah muraayad hadii gudahaagu qurux ay ka muuqato sida sonkor meel yar taalo shinidu ay ugu timaada caalamku danihiisa ka dhaxarkaya hadana ka dhaxarkina adaa ka dhax iibinaya waxa gudahaaga qurxinayana waxa weeye maamulka ka jiray haduu dhalin kari waayay midnimadii muwaadiniintii midnimadii siyaasiyiintii midnimadii golayaashii damcineed waxa failure bay waxa yimid inuu maamulkii habsaday bay sida awgeed hadii gudihii marka ay ku dhacday inuu dhicisoobay muraayadii guduhu waad arkaysaan golayaashii qaranka ilaahay waxa la mariyaa waraaqii la iska qaban kari waay waad arkaysaa xisbiyadii nidaamkii dimuqraadiyadda ee lalahaa waan ku faanay waan soo sameynay waxay maraysaa in maaragtay hadda shaki ku jiro doorasho ma dhici doonta la isku wada haysto aragtidii dambe waad arkaysaa maamulkii marka waxa abuurmay jawiga cakiran cidun baa ka mas'uula dadku dhan kama mas'uula soo wada jawiga cakiran cid baa ka mas'uula cidda ka mas'uulka ah iyada ayaa laga xilka koowaad wada cidda xilka koowaad ummadda ay u igmatay ayaa laga rabaa inay xisaabta u yeerato ayaa laga rabaa inay waxgaradka u yeerato ayaa laga rabaa inay golayaasha u yeerato ayaa laga rabaa inay dulqaadka iyo la timaado niyadasan ayaa sidaa Faysal uu sheegay laga rabaa inay barnaamijkeedii la timaado loo saxo loo habeeyo hadda waxaad moodaa in aan garqaadasha aan meeshii jirin tala wadaagii dimuqraadiyadda de ku bees garan ay meesha ka baxay aniga marka waxaan isleeyahay inaan dibadda aanay halgan اعتراف كبر دلن كريم مر هدي جوديه أنا جودها إلى قوة بدن هل كلا ليه هاي أنت دولة الله تجوا اعتراف لو يدي سنة دولة واحد كو إيماني يعني وواحد سميستي واحد سميست نبدي وان هينا وواحد قول له وواحد مدن إلى هاي ما أرتكم من نستي لكن نبدأ كل كي لقى صوت تجوا وحلا لو وحي هراء عن بلوني با سيدا حدك وصوص على الديمقراطية وصوص عطا أو تلولا وصوص عطا أو واحد بابا أي كوسا أوروريا ما أرتي ويل يركوس أوروريا waxa maqan wariye horta run badan way maqan tahay faham badan way naga maqan golaha xukuumadda iyo baarlamaanka oo laba golo ah
dawlad baa la isku yidhaha waxaa kaloo la yidhaha regime qof maaha waxa weeyaan waa dad isku waktiya oo isku waktigooda hawl wada hayay guusha ay gaadhaan iyo guuldarrada ku timaado dalka labadaba way wadaagaan fahamkaas waa maqan oo waxa weeyaan golaha qaar baa waxay u yaqaanaan in xukuumaddaasu dalka xukunto iyaguna ay meesha joogaan dabadeedna aynu diidno aanu ciidda kaga joogsano waxa weeyaan duqsigu dhicisku inta birta loo soo sidaabuu ka dhinta waxa weeyaan mar kasta oo muran yar yimaado ama hawl la qaban lahaa muran ka yimaado hakad galo waxa weeyaan waxyeelo fara badan bay inoo geysanaysaa regime horta kuwaasaa la yidhaha inay gartaan horta shaqada ay kala leeyihiin iyo ta ay wada leeyihiin labaduba waa laga maarmaan waxaad moodaa inay meesha ka maqanta axsaabta kuma jirto regimeka waa joogto tal iswal oo iman doonaa wuxuu ka soo baxayaa laga soo dooranayaa axsaabta laakiin regime waxaa la yidhahdaa kolba inta markaa hawsha wada haysa oo guurtida oo baarlamanka oo xukuumadda oo madaxweyne ugu madaxya guud ahaan mudoolintaasi waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka